gudoomiyaha aqalka sare oo gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ku eedeeyay inay been abuur ku sameeyeen xeerka maareynta maaliyadda guud ee dalka. dawladda Soomaaliya oo soo gabagabeynaysa bixinta qandaraasada shidaalka dalka xilli dawlad goboleedyada qaar ay ku hor yimaadeen sharciga batroolka. madaxweynaha koonfur galbeed iyo madaxweyne xasan sheekh oo ka qayb galaya gabagabada shirka mudulood oo maalmahan ka socday magaalada Muqdisho. ciidamada dawladda iyo kuwa koonfur galbeed oo maanta isaga baxay deegaanada Daynuuna iyo Goofgaduud Buuray oo kaabiga ku haya magaalada Baydhabo iyo Al-Shabaab oo la wareegay. khilaaf aad u culus oo ka taagan dib u furidda masaajidda xirnaa muddo ka badan 10 sano khilaafkaas oo salka ku haya kala aragti doonaanshaha dariiqooyinka diinta oo ka taagan magaalada Guriceel. warbixin ayaan idinka haynaa. shirweyne looga hadlayo xalka gaarista khilaafka dawladda federaalka iyo Jubbaland oo ka taagan gobolka Gado oo ka furmaya magaalada Dhuusamareeb. xildhibaanada dawlad goboleedka Jubbaland oo maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2020. ku dhawaad 10 ruux oo ku dhintay dab ka kacay isbitaal ku yaala dalka Hindiya. iyo dadka ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada Beirut oo kordhay. mar kale duhur wanaagsan waa Khamiis 6 bisha 8 2020 warka kulmiye waxaa si wada jira u soo jeedinaya anigoo Amaaliya Axmed Siciid Axmed isla Axmed ayaa warkeena duhurnimo soo saaray ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran. aan ku bilownay gudoomiyaha aqalka sare ayaa gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ku eedeeyay inay been abuur ku sameeyeen xeerka maaliyadda guud ee dalka. war qoraal oo ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa lagu eedeeyay golaha shacabka Soomaaliya inay been abuur ku sameeyeen xeerka maareynta maaliyadda. gudoomiyaha Cabdi Xaashi aan ku bilownay gudoomiyaha aqalka sare ayaa gudoonka golaha shacabka Soomaaliya ku eedeeyay inay been abuur ku sameeyeen xeerka maaliyadda guud ee dalka. war qoraal oo ka soo baxay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa lagu eedeeyay golaha shacabka Soomaaliya inay been abuur ku sameeyeen xeerka maareynta maaliyadda. gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa sheegay in marka uu madaxweynuhu saxiixo sharci ay soo wada ansixiyeen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu qeexayo madaxa afaraad ee qodobka 82 iyo 83 ee dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya uu dhigayo in marka golaha shacabku ay helaan hindisa sharciyeed wax ay ka soo bedeleen golaha aqalka sare uu qaadi karo 3 tallaabo midkood. qodobka koobaad ayaa lagu sheegay inuu yahay wax ka bedel ay ku sameeyaan kuna soo celiyaan aqalka sare iyo inay aqbalaan wax ka bedelka aqalka sare una gudbiyaan madaxweynaha iyo qodobka saddexaad oo inay ku diidaan wax ka bedelka aqalka sare cod 3 dalool 2 dalool ah una gudbiyaan madaxweynaha. gudoonka golaha shacabka ayaa sidoo kale lagu eedeeyay in isaga oo aan qaadin mid ka mid ah 3 tallaabo ay been abuur cad ku sameeyeen xeerka maareynta maaliyadda guud ee dalka waxaana ay sheegeen gudoonka aqalka sare inaan la dhaqan gelin karin xeerkan. sidoo kale gudoonka aqalka sare waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu saxiixay xeer lagu sheegay inuu ku jiro wax ka bedel ay sameeyeen aqalka sare waxaana ay madaxweynaha u soo jeediyeen in xeer madaxweyne uu ku ogolaado xeerka saxda ah ay sheegeen inay u gudbiyeen iyagu madaxweynaha. ugu dambeyntii gudoonka aqalka sare ayaa dalbaday in hay-adaha sida saxda ee warqadan ugu socoto ay baaris degdega ku sameeyaan sida uu u dhacay been abuurka xadgudubka ku ah hanaanka dawladnimo iyo sarreynta dastuurka dalka. tan iyo markii uu furmay kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ah koodii ugu dambeeyay ayaa waxaa soo ifbaxayay khilaaf aad u xoogan oo ka dhaxeeya gudoonka labada gole waa aqalka sare iyo golaha shacabka iyadoo oo la xasuusto inay si weyn iskugu khilaafeen sharciga doorashooyinka dalka oo ay meel mariyeen kaliya xildhibaanada golaha shacabka waa habraacyadii ka dhalanayay xeerka doorashooyinka dalka. gudoomiyaha aqalka sare ayaana horay sidan oo kale u sheegay in been abuur lagu sameeyay habraacyada oo guddi wada jira oo ay saareen ay soo diyaariyeen. dawladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeynaysa bixinta qandaraasyada shidaalka dalka xilli dawlad goboleedyada qaar ay ka hor yimaadeen sharciga batroolka. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa soo koobaya. dawladda Soomaaliya ayaa la filayaa in markii ugu horreysay horaanta sanadka soo aadan ay ku dhawaaqdo shirkadaha ku guuleystay qandaraasyada ruqsadaha shidaalka iyo gaaska
ibraahim cali xasan oo ah maareeyaha hay-adda bedroolka soomaaliya horeyna u ahaan jiray la taliyaha wasiirka bedroolka oo wareysi siinayay wakaaladda wararka ee royters ayaa sheegay in arrintan ay soomaaliya ka caawinayso dib u dhiska dhaqaale ee dalka. waa tallaabadii ugu horreysay oo dowladii qaado tan iyo 1991kii markaas oo xilka laga tuuray madaxweynihii hore ee dalka maxamed siyaad barre. dowladda soomaaliya ayaa horey u shaacisay in ay bixinayso rukhsadaha xirmooyin gaaraya ilaa iyo 15 iyadoona haatan laga dhigay 7 xirmooyin sababo la xiriira dhibaatooyinka dalka ka jira awgii. waxa uu yidhi maareeyaha hay-adda bedroolka soomaaliya safmarka korona ayaa dib u dhigay wadahadallada dowladda iyo shirkadaha la siinayo qandaraasyadan sida shell iyo exxonmobil. haddii uusan jiri lahayn coronavirus qorshaha heshiiskan waa uu dhammaan lahaa waxuuna haatan dib u dhacay ilaa iyo dhammaadka sanadkan si gaara bisha disembar. afhayeen u hadlay shirkadda shell ayaa waxa uu sheegay in wadahadallo midho dhala ay kula jiraan mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya kuwaas oo lagu beddeli karo heshiiskii jiray balse ma jiro weli dhanka shirkadda exxon cid uga hadashay arrintan. shirkadahan ayaana horey heshiis ugula jiray dowladdii dhexe ee dalka taas oo burburtay 1990kii. qaybsiga kheyraadka soomaaliya ayaana waxaa heshiis ku ahayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda xubnaha ka ah iyadoona dhowaantan madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu uga digay waddamada iyo shirkadaha shisheeyey inay gataan shidaalka soomaaliya oo aanan heshiis lagu ahayn. ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed ee ku sugnaa deegaanada daynuuna iyo goofguduud oo kaabiga ku haya magaalada baydhabo ayaa lagu soo warramayaa inay halkaas isaga baxeen iyadoo dhinaca kalena ay la wareegeen kooxda shabaab. farxaan maxamed xuseen ayaa faahfaahinaya. ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya ayaa gebi ahaanba iskaga baxay deegaanada daynuuna iyo goofguduud buuray ee gobolka baay ka tirsan. wararka ayaa sheegaya in dagaalamayaal ka tirsan kooxda al-shabaab ay la wareegeen deegaanada ay ka baxeen ciidamada xoogga. deegaanka daynuunay waxaa shalay ka dhacay dagaallo culus oo dhex maray ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab waxaana dagaaladaasi la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. sidoo kale dagaaladaasi waxaa ka dhashay khasaaro iskugu jira dhimasho dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac. wararka ayaa sheegaya in cabsi xooggan ay soo wajahday dadka ku nool deegaanada goofguduud buuray iyo daynuunay ee gobolka baay kadib markii ay la wareegeen kooxda al-shabaab. ilaa iyo hadda lama ogo sababta ay ciidamada dowladda ugu baxeen deegaanada goofguduud buuray iyo daynuunay. ciidamada dowladda ayaa fariisimo ku lahaa deegaanada ay maanta ka baxeen waxaana deegaanadaasi ku soo laabtay weerarada ay ka geysanayaan kooxda al-shabaab. ma jirto wax war oo ka soo baxay ilaa iyo hadda taliska militariga soomaaliya oo ku aadan ka bixitaanka ciidamada dowladda ay ka baxeen deegaanada ka tirsan gobolka baay. deegaanka daynuunay waxay magaalada baydhabo u jirtaa 25 kilomitir waxayna ka mid tahay fariisimaha ciidamada dowladda ay ku leeyihiin deegaanada gobolka baay ka tirsan. gacan ku haynta deegaanka goofguduud buuray iyo daynuunay waxaa marba isku beddelaya ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab waana halka meel ay inta badan ku dagaalamaan ciidamada dowladda iyo kooxda al-shabaab. dhinaca kale war qoraal oo lagu baahiyey baraha internetka ee lagu taageero kooxda al-shabaab ayaa waxaa lagu sheegay inay la wareegeen deegaanada daynuunay iyo goofguduud buuray ee gobolka baay ka tirsan. hadda waxaa magaalada muqdisho ka socda gebagabada shirka beesha mudulood oo maalmihii lasoo dhaafay ama 4tii maalin ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho. gebagabada shirkan waxaa ka qaybgelaya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen, wasiiro ka tirsan xukuumaddii kalsoonida golaha shacabka weysay ee xasan cali kheyre iyo sidoo kale xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo horey xilal uga soo qabtay soomaaliya. shirkan ayaa 4tii maalin ee lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho waxaana looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo tanbeesha intaba. khaliif cabduqaadir macalin nuur oo ka mid ah qabanqaabayaasha shirkan oo halkaasi ka hadla waxa uu sheegay in shirku uu si guula ku soo dhammaaday islamarkaana ay sidoo kale ka qayb galeen xubno aan beesha ka mid ahayn. inkastoo madaxweynayaashii hore ee soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen aysan weli hadalladooda halkaasi ka jeedin oo ay munaasabaddu socoto, haddana waxaa la filayaa in gebagabada shirkan laga akhriyo war murtiyeed dhowr qodob ka kooban. warkan oo faahfaahsan wararkeenna kale iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan haddii alla laga helo. shirweyne looga hadlaya xalka gaarista khilaafka dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee ka taagnaa gobolka gado ayaa ka furmaya magaalada kismaayo. dhinaca kale xildhibaanada jubbaland ayaa maanta ansixiyey miisaaniyadda sanadka 2020 ee maamulkaasi. cabdimajiid cabaas aadan oo KNN kismaayo uga soo warrama ayaa soo diray warka.
iyadoo dowlad goboleedka Jubbaland dhawaan ay ku baaqday in gudaha magaalada Kismaayo lagu qabanayo shir dib u heshiisiin oo ay markaa ka qayb galayaan dhammaan qabaa'ilada deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo waxaa soo gaaray ergadii ugu horeysay ee shirkaasi dib u heshiisiinta ka qayb galaysa waxaana markaa ay ahaayeen dhammaan odayaal markaa ka soo kictamay deegaanada gobolka Gedo iyadoona si weyn maanta magaalada Kismaayo loogu soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa odayaasha markaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan iyadoona markaa gudaha magaalada Kismaayo lagu wado maalmaha ina soo aadan inuu ka furmo shirka dib u heshiisiinta beelaha deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland oo ay ka qayb galayaan dhammaan beelaha Jubbaland iyadoona markaa shirkaasi marka uu furmo lagu faaqidi doono arrimo ay ka mid yihiin xiisada gobolka Gedo ee markaa u dhaxaysa dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland iyadoona sidoo kale dhinaca kale looga hadli doono arrimaha markaasi ay tabanayaan dadka deegaanada gobolka Gedo hase yeeshee kulanka marka uu furmo ayaa dhinaca kale waxaa markaa la isla soo hadal qaadi doonaa arrimo ay ka mid yihiin dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland khilaafka u dhaxeeya ee dhanka ciidamada ee gobolka Gedo